بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ الكيم بهالكني ومجن ميديا أنونا وحنا هي عبد القادر محمد وكوبي اللباتنك بشان نوفمبر سنة اللبادكون يوشان يلباتنك دولة وحكاميو رئيس الوزراء دلك إثيوبيا نكلو مجعب أبي أحمد قومية رمضان كسو جيدا doorashadii labaadna doonaya inuu dalkaasi si aqlabiyad lagu guuleysto ayaa markan waxa lagu eedeynayaa in dhalinyarada gobolka iyo sidoo kale tan guud ahaanba Itoobiya si qasaba ugu darayo ama ugu qorayo ciidamada kala gedsan ee dalkaasi si gaar ah kuwa militariga ee qalabka sida dowladda wadanka Mareykanka iyo dowladda uu isagu hogaaminayo ayaa waxa ay qayladaan ka soo saareen in Abiy Ahmed iyo dowladdiisu ay mudooyinkii u dambeysay ku hoolanayd dhalinyaro kala gedsan oo la tilmaamay inaysan bagaarin xilligii ay qoriga qaadi lahaayeen in ciidamada dalkaasi Itoobiya siyaabo kala gedsan oo aan sharci ahayn markaas loogu qorayo waxaana Abiy Ahmed iyo dowladdiisa eedeyn ballaaran loogu jeediyay sida ay ugu tumanayaan xuquuqda dhalinyarada dalka Itoobiya warbixino kala gedsan oo dalkaas ka soo baxaya ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in dhalinyarada lagu qasbayo ciidamada militariga ah ee dalkaasi Itoobiya marka hore laga qabanayo magaalooyinka dalkaasi Itoobiya uu ka kooban yahay kadibna la geynayo goobo ay ilaaliyaan ciidamada kale ee militariga iyo sidoo kale kuwa booliska federaalka oo u diiday dhalinyaradaasi inay goobahaas ka baxsadaan waxaana la tilmaamay in si qasab ah markaas dhalinyarada Itoobiyaanka loogu hayo xiriir kala gedsan oo dalka Itoobiya ku yaala kuwaasoo la sheegay inaysan iyagu ogolayn inay markaasi qortaan ciidamada kala gedsan ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale dowladdiisa ayaa lagu eedeeyay inay u raadinayso askar markaasi ay ka horgeyso TPLF iyo dowladda wadanka Eritrea oo mudooyinkii u dambeysay xiisadda labada dowladood iyo sidoo kale tan hogaanka TPLF ay markaasi si xumaanaysay warbixinta waxa intaasi ku dartay in mudooyinkii u dambeysay dowladda Abiy Ahmed ay markaasi qorsheynaysay inay 100,000 kun oo dhalinyaro markaasi Itoobiya ah oo da'doodu ay ka hooseyso 25 sano jir markaasi in ciidamada kala gedsan si qasab loogu darayay qaar ka tirsan dhalinyarada Itoobiyaanka ayaa dhinaca kale waxa la tilmaamay inay dalka ka qaxeen iyagoo markaasi diidan inay qortaan ciidamada ay dowladdu ku qasbayso qayladhaanta waa ay soo tartaraysaa hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadamka waxa ay tilmaamayaan in Abiy Ahmed iyo dowladdiisu ay ku kacayso wax sharciga caalamiga ah ka soo horjeeda sidoo kalena ay qasab ku qorayaan dhalinyaro aan gaarin warbixinadii ugu dambeysay ee saaxiibeel warbixinadaasi laga qoray ayaan barnaamijkeenan koowaad in kula wadaagi doonaa ee soo dhawow nagu soo biiro barteena Magan Media ee YouTube-ka subscribe ku samee haddii aad hore noola joogin haddii aad hore noola joogtana muuqaalkan la garay sidoo kalena si share gare si asxaab ballaaran markaas uu gaaro laga yaabo in qayb ka tirsan ehelkaagu ay ku jiraan dhalinyarada kala gedsan ee markaas Itoobiya ay si qasab ciidamadeeda uu kala qorayso aynu ku bilownaa dalka Itoobiya mudooyinkii u dambeysay waxa ka soconayay in dhalinyarada ka soo kala jeeda gobolada dalkaasi uu ka kooban yahay si qasab markaasi loogu dareeyay inay qortaan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa federal booliska loo yaqaano kuwaas oo dowladda markaasi ama dowladda sare ay maamusho madaxda gobolada ama dowlad deegaanada dalka Itoobiya ayaana amar lagu siiyay inay 10,000 kun wax ka badan oo askarta lagu darayo kana dhalinyarada gobolkoodana kamida ay soo diiwaan galiyaan waxa hadda soo baxay warar sheegaya in dhalinyarada hadda la qoray ciidamadaasi aysan baahayn kuwa markaasi rabitaankooda ciidamada kala gedsan ee militariga dalka Itoobiya markaasi ku qortay ee ay yihiin kuwa ay dowladdu si qasab markaasi ugu qortay laamaha kala gedsan ee amniga ee dalkaasi Itoobiya Mareykanka dowladuhu hogaaminaya waxa ay leeyihiin Abiy Ahmed waxa uu ku kacayaa falal sharciga caalamiga ka hor imaanaya dhalinyaro aan da'doodii xilligii ay askarta qoran lahaayeen gaarin ayayna dowladda Abiy Ahmed ku qasbaysaa ay leeyihiin inay ciidamada kala gedsan ee markaas militariga iyo federal booliska ay qortaan qayladhaantan mudooyinkii u dambeysay waa ay soo tartaraysay hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadamka hore ayay arintan uga dayriyeen waxaana la tilmaamay Abiy Ahmed inuu doonayo inuu dhalinyaro badan oo Itoobiyaan markaas uu dabka ku shubo kuwaas oo la rajeynayo in haddii uu qarxa dagaalka u dhaxeeya TPLF iyo dowladda
iyo sidoo kale Ethiopia iyo Eritrea markaasi laga horgeyn doono muddooyinkii u dambeysay 100,000 oo dhalinyaro ah ayaa xerooyinka kala gadsanaya Ethiopia militariga ay ku tababarto markaasi lagu soo bandhigayay kuwaas oo dawladdu ay sheegtay inay qayb ka noqon doonaan howlgallada militari ee ay doonayaan inay kala hortagaan kooxaha xagjiriinta ay ku tilmaameen ee gudaha dalka Ethiopia ka howlgala si gaar ah Faana iyo sidoo kale jabhadda Oromada ee Ola oo deegaanka Oromada iyo sidoo kale kan Axmaaradaba ka howlgala dhinaca kale xiisada u dhaxaysa Ethiopia iyo Eritrea ayaa marba u dambaysa loo sii dhawaanaya Abiy Ahmedna waxa la tilmaamay inuu doonayo in badnida shacabkiisa uga faa'iideysto in 100,000 oo dhalinyaro ah markaasi oo ciidamada qoro Eritreana markaasi uu ka horgeeyo ciidamadaasi warbixin haddaba ay daawacday warbaahinta BBC-da ayaa waxaa lagu sheegay in qayladhaantaasi marba kasii dambaysa ay soo tarayso waxaana lagu bilaabay muddooyinkii u dambeeyay waxaa dalka Ethiopia ka soo baxayay cabashooyin badan oo ku aadan in dhalinyarada si qasab ah loogu qabto ama looga qabto wadooyinka iyo sidoo kale bostoojooyinka ama goobaha gawaarida laga raaco loona qaado tababar ciidan oo aysan markaas iyagu raali ka ahayn BBC-da ayaa ogaatay qoysaska maxaabiista iyo sidoo kale dadka arintan la socday in dhalinyaradu ay ku jiraan shaqaale dawladeed oo si qasab ah looga soo qabtay wadooyinka magaalooyinka Ethiopia lana geeyo goobo kala gedsan si loo geeyo goobo lagu tababaro ciidamada militariga dhalinyaradu ma ayna ogoleen ayaa la leeyahay inay ciidamada markaasi qortaan dawladda wadanka Mareykanka ayaa warbixinay soo saartay waxa Ethiopia u baaqday ama ay ka sheegtay inay si qasab ah markaasi lagu askareeyo caruurta aan qaan gaarin isla markaasina laga dhigo ciidamo waxayna tilmaantay ama dawladda Ethiopia loogu baaqay Mareykankuna ugu baaqay in arintaasi ay joojiyaan oo ay markaasi la joojiyo in dhalinyarada aan qaan gaarin markaasi lagu askareeyo ama ciidamada kala gedsan la qoro xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa warbixintiisa sanada 2025 ugu baaqay dawladda Ethiopia inay joojiso sida sharci darrada ah ee caruurta ugu tababaraysa militariga kala gedsan xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka warbixintiisa Ethiopia waxa uu sidoo kale ugu baaqay in dawladdu ay joojiso inay caruurta askarayso sidoo kalena ay si xooga markaasi ugu darto ciidamada kala gedsan waxa jira dhalinyaro badan oo si qasab ah loogu soo ururiyay meelo kala gedsan oo ka tirsan gobolka Oromia kuwaas oo lagu biiriyay ciidamada difaaca qaranka ayuu sheegay mid kamid ah dadka deegaanka Oromia u dhashay mid kamid ah shaqaalaha dawladda oo ku sugan galbeedka gobolka Arsi ama Ersi oo deegaanka Oromada ka tirsan isla markaasina la sheegay inuu yahay dhakhtarka xanuunada xoolaha ayaa warbixintaasi dawladda iyo sidoo kale warbaahinta BBC-da la wadaagay bishii March 14keedii 2025 ayay ciidamada ammaanku xireen xilli uu subaxnimadii ka soo baxay qoyskiisa ama guriga uu ka degan yahay magaalada oo uu shaqo u aaday magaalada Adama ama Naazire dadku say u yaqaanaan oo ah magaalada caasimadda oo deegaanka Oromia kaas oo la tilmaamay in inta uusan gaarin ba magaaladaasi ay ciidamada dawladdu qabteen si qasabana loo geeyay xarumaha lagu tababaro ciidamada kala gedsan waxa sidaas lagu yiri warbixin ay markaas BBC-du daabacday waxa uu ku qaylinayay inuu yahay shaqaale dawladeed iyo dhakhtar xoolaha ah balse ciidamada ammaanka dhag jalaq uma aysan codsigiisa waa la xiray oo la geeyay goob ku taala magaalada Adama oo isugu yimaadeen dhalinyaro kala timid qaybaha kala gedsan ama qaybaha kala gedsan ee gobolka Oromia mid kamid ah dhalinyarada ay xireen ciidamada Maleeshiyada iyo sidoo kale booliska waxa uu fariin qoraal ah oo u diray qaraabadiisa oo degan magaalada Shashamane ee gobolka Oromia ka tirsan ka hor inta aan la qaadin ama inta aan laga qaadin telefoonkiisa ciidamada ammaanka ayaa igu xiray buu yiri magaalada Adama markaasina waxa ay geeyeen ayuu yiri saldhig ciidamada markaas lagu tababaro mid kamid ah dadka deegaanka Shashamane oo ay qaraabo yihiin shakhsigan qoraalka u diray dawladda iyo sidoo warbaahinta iyo qoyskiisa oo magaciisa la qariyay ayaa codsaday markaas inaan magaciisa la xiganin sababo ammaan darteed oo markaas lagu sheegay in warbaahinta hadii laga sheego magaciisa qoyskiisa markaas la raadsanayo kaas oo lagu xiray magaalada Adama dhalinyaro badan ayaa laga tuuray goobaha lagu hayo waxayna ku hareeraysan baa leeyahay booliska iyo sidoo kale maleeshiyaadka gobolka Oromia oo ilaalinaya markaas inay dhalinyaradu baxsadaan meelaha ugu badan ee ciidamada markaas laga qoray ayaa la tilmaamay inay yihiin kuwa deegaanka Oromia ka soo jeeda dadka deegaanka oo markaas BBC-da la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen
in si aan kala joogsi lahayn muddooyinka ugu dambeysaba ciidamada dowladdu ay u qaqabanayeen dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Oromiya kuwaasoo la sheegay in markaasi lagu qorayo ciidamada kala galsan ee militariga iyo sidoo kale kuwa markaasi boolis federaalka loo yaqaano waxayna warbixinta markaasi ay tilmaamaysaa sida ay dadka shacabka markaasi uga argagaxayaan in dhalinyaradoodii kala galsaneed ee markaasi ku jirtay iskuulada jaamacadaha iyo kuwii sidoo kale shaqaalaha dowladda ahaydba si isku mid ah loo qorayo muddooyinkii u dambeysaba Abiy Ahmed iyo dowladdiisu waxa ay ku howlanaayeen sidii ay ciidamo ballaaran ama tiro badan markaas dowladdu ay u heli lahayd kuwaasoo la sheegay in loo diyaarinayo sida ay qayb lahaad uga qaadan lahaayeen dagaalada gudaha dalka Itoobiya ka socda iyo sidoo kale kuwa ay dowladdaasi doonayso inay ku qaado dalka Eritrea oo ay ku sheegtay inay qabsan doonto dekada Casab Abiy Ahmed waxa uu qorsheynayaa in dadkiisa oo tiro badan markaas uu ka faa'iideysto deegaanka Oromiya ayaana la tilmaamay meelaha ugu badan ee dhalinyarada markaasi laga qoraya inay ka mid yihiin Soomaalida madaxweynaha deegaankaasi ka taliya Mustafa Maxamed Umar Mustafa Cagjar ayaa dhinaca kale waxa la tilmaamay inay dowladda Itoobiya ku wargelisay inuu keeno 20,000 oo wiil oo Soomaali ah kuwaas la tilmaamay inay qayb ka noqon doonaan militariga kala galsan ee dalka Itoobiya TPLF iyo dowladda ayaa aad muddooyinkii u dambeysay khilaafkoodu u ballaaraa kadib markii la sheegay inuu burburay heshiiskii 2022 dalka Koonfur Afrika magaalada Pretoria ka dhacay ee markaas TPLF iyo dowladda Abiy Ahmed bay ku heshiiyeen kaas oo hadda la sheegay inuu meesha gabi ahaantiisa ka baxay waxaana laga cabsi qabaa mar kale inuu dagaal ka qarxo Abiy Ahmed ayaana dhalinyaradan uu si qasabka ugu qoray ciidamada kala gedsan waxa la tilmaamay inuu doonayo inuu laba markaas garab u qaybiyo qayb uu TPLF ka horgeeyo iyo sidoo kale qayb uu markaas ka horgeeyo dowladda Eritrea oo muddooyinkii u dambeysayba markaas xiisad cakiran ay ka dhex jirtay Casabna ay dowladda Itoobiya ku doonaysay dhowr meelood oo ay dooyanka Soomaalidu ciidamada militariga ay ku leeyihiin saldhigyo ayaa muddooyinkii u dambeysay oo tababaro kala gedsan dhalinyarada loogu soo xirayay sidoo kale deegaanka Oromiya kan Axmaarada iyo sidoo kale deegaanada kala gedsan dalkaas Itoobiya ayaa iyaguna qayb ka ahaa halka dhalinyarada kala gedsan markaasi laga qoray waxa la tilmaamay magaalooyinka ugu badan ee markaasi dhalinyarada laga ururiyay inay sidoo kale ka mid tahay magaalada Dasai lagu magacaabo oo gobolka Axmaarada ka tirsan halkaas oo iyadana la sheegay in markaasi dhalinyaro badan laga qabtay dhinaca kale waxa warbixinta lagu tilmaamay ama lagu sheegay in magaalada Addis Ababa ay ka mid tahay meelaha dhalinyarada badan ee ciidamada militariga sida qasabka lagu qorayo ay ka mid tahay deegaano uu ka mid yahay kan Bilshaangul Gumus iyo sidoo kale kan Gambeelaha ayaa iyadana la tilmaamay inay qayb ka ballaaran ka yihiin meelaha aadka looga qorayo sida ay warbixinada markaas Itoobiya laga qoray ee lagu sheegay deegaanka Oromiya waa meesha ugu badan iyadoo ay dowladdu sida aadka ciidamada uga qoranayso waana dabcan meesha uu ka soo jeedo Abiy Ahmed waxaana la leeyahay ciidamada ugu badan deegaankaas ayuu ka qortay isagoo oo doonaya markaasi in dhalinyaradaasi uu dabka ku shubo si uu gaaro yoolkiisa siyaasadeed ee ah inuu Itoobiya marinbadeed gaarsiiyo ku taal baddaas taasoo hadda ciidamada Itoobiya ay horeba u sheegeen inay u diyaarsan yihiin inay qabtaan dekada Casab oo ay dowladda Itoobiya marar kala gedsanba si cad u sheegatay inay iyadu hore u lahaan jirtay balse dowladda Eritrea iyo sidoo kale TPLF xukunka kala wareegtay Mengistu Haile Mariam ay si aan markaas waafaqsaneyn shuruucda caalamiga markaasi ay markaasi ay ugu babadhigi lahayd labada meeloodna ama TPLF iyo dekada Casabna dagaalo ay ugu qaadi lahayd arintaas walaac badan ayaa laga muujinayaa qaramada midoobay waxa ay tilmaantay in xaaladda Itoobiya dhalinyaradu ay ku sugan yihiin inay tahay laba daran mid dooro dalka oo dagaalo adag ay ka socdaan sicir barar ballaaran uu ka taagan yahay shaqo xumo baasanna markaasi ay jirto ayaa haddana waxa dhalinyaradii lagu qasbaya ayaa la leeyahay in markaasi ciidamada kala gedsan ee militariga iyo boolis federaalka si qasaba oo iyagu markaasi aysan ogolayn loogu qoro waxaana dhinaca kale la tilmaamay dhalinyaro aanba gaarin da'da lagu qaangaaro markaasi in Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu ay ciidamo markaasi ka dhigeen sida la tilmaamay sawirro baraha bulshada lagu faafiyay ayaa waxa laga dheehan karaa sida dhalinyarada kala gedsan ee markaasi ka muuqanay sawiradaas tababaradana ay dowladda Itoobiya u soo xirtay inay markaasi yihiin niman aanba gar u soo bixino markaasi wajiyadooda la fiiriyo aad u daayar haday ugu badan yihiin 15 jir ilaa
ilaa iyo wixii 20 jir ka yar markaasi u dhaxeeya Mareykanku isagu waxa uu sheegay dad aan qaangaarin in la qorin inkastoo Mareykanku qaangaarka uu yaqaano da'da 18 jirka taasoo inta badan la tilmaamo inay wadamada caalamku ay ku dhaqmaan wax inta ka yarna aan askari ama markaasi qor loo dhiibi karin warbixintan koowaad saaxiib beelintaas ayaan kusoo gabagabeynaya Ethiopia waa isdiyaarinaysaa waxayna isu diyaarinaysaa dagaallo ay TPLF Eritrea ku qaado dawladaha caalamkuna waxa ay leeyihiin Abiy Ahmed waxa uu wada la yeelmay jooji dhalinyarada aad askaraynayso warbixintan xigtay intaan ku kulmi doona saaxiib nagu soo biiro barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee haddii aad hore noola joogteen muuqaalkan la garay sidoo kalena saaxiibada la wadaag si muuqaalo kale oo markaas la xiriira arrimaha Ethiopia iyo geeska Afrika aan idinku soo gudbino inta kulmi doona warbixintan xigta waana Cabdulqaadir Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo